iyadoo aafada xanuunka coronavirus uu saameyn weyn ku yeeshay guud ahaan dunida hase ahaatee wadamo badan oo quwadaha reer galbeedka ay ka mid yihiin ayaa dadaal ku bixiyay sidii loo heli lahaa dawada cudurka COVID-19 ee dunida halakeeyay. Marka la eego wadankeena Soomaaliya ayaa qayb ka noqday wadamada uu dadka badan cudurkani ku dilay, kuwa kalena uu ku soo ritay. hase noqotee magaalada Beledweyne ee xarunta ganacsiga dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa muddooyin badan uu dadkeeda xanibay coronavirus, isla markaana goobo badan oo waxbarashada, caafimaadka iyo isdhexgalka bulshada uu hakadgeliyay. hase ahaatee mar aan maanta codbaahiyaha la dhex qaaday qaar ka mid ah bulshada magaalada Beledweyne ayay iga warameen saameynta ay kala kulmeen xanuunka COVID-19 iyo heerka cabsida laga qabo cudurka. ku nool magaalada Beledweyne qaasatan gobolka Hiiraan run ahaantii maalinkuu bilowday ilaa haddeertaan corona waa uu si yar buu si yaraanaya inkastoo uu naga yaraaday muddooyinkan bilooyinkan dambe cudurkan leeyahay corona ama COVID-19 ay muddo u taqaano dadweynaha oo dhan uu ku sameeyay saameyn uu xooggan uu ku dhigay anaga laakiin reer Beledweyne maadaama aan nahay waxaan dareemaynaa inuu hoos iyo yar ba naga sii dhacayo ama se uu naga sii suulayaba isdhexgalka bulshada. markaad fiiriso magaalada joogeeda wuu si fiican yahay maasha Allah. hor waxa jirtay in dadka ay kala fogaadaan ay face mask xirtaan, haddeerna waxa waaye ilaa maadis waaye in nin kasta oo dantiisa iska wato oo cudurkiina si uu naga suulay baan dareemaynaa. waxaan ka mid ahay bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne waxaana filayaa inuu cudurka dilaaga COVID-19 oo markaan hoos u dhac ku imaaday awalka anagoo isticmaalayna James dilaha gacanaha everyday la dhaqanayo sidoo kale inta aan xiranayna maaska afka maasha Allah intii hadda waa ka soo gudubnay. runtii waa sax cudurkan coronavirus misna COVID-19 waa cudur runtii guud ahaan dunida saameeyay waana dareemahaynaa run ahaantii caqabadaha iyo waliba effectska uu reebay. alxamdulillah anigoo hadda markaas aynu nahay Hiiraan qaasan waliba reer Beledweyne intaan ka warhayo run ahaantii cudurkaasi effects uu ku yeeshay balse alxamdulillah ilaahay mahadis ilaahay baa hadda naga dulqaaday oo wali yaani saameyntii iyo waliba dhaqdhaqaaqii iyo cabsidii aadka lagu qabay kama jirto wali magaalada san rajaynayo. waayga hor runtii waxa la qaadanayay mask face-kii hygiene-kii oo yaani nadaafadii dhanka gacmaha in lagu dadaalo. alxamdulillah marka cudurka ilaahay baa keenay haddana hoos u dhiciisa run ahaantii ilaahay baa markaas keenay. marka alxamdulillah waxaan leenahay ilaaha ku mahadsan kunjeer. waxaa Soomaaliya soo gaaray talaalka ka hortagga xanuunka COVID-19 kaas oo ay Soomaaliya ugu deeqday hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO, isla markaana wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo wasaaradaha caafimaadka dowlad goboleedyada ayaa dadaal dheer ku bixiyay sidii wadankooda loo gaarsiin lahaa talaalka xanuunka COVID-19 taas oo sahashay in xanuunka coronavirus uu ka yaraado guud ahaan Soomaaliya. Ibrahim Xasan Ibrahim Jumuni, muqbaahiyaha caalamiga dowlad goboleedka Hirshabelle, magaalada Beledweyne.